أنتم خير الأمم. labaatan iyo toddoba arday oo ka tirsan markaska Khaliilur Raxmaan ee xaafadda Buulagara ee magaalada Mandera ayaa maanta lagu maamusay safar dalxiis oo heer sare ah kadib markii ay dhameeyeen barashada 30 juz ee Quraanka Kariimka. Ardaydan oo ah dufcadii 10aad ee markaskan ka qalin jibiyay ayaa maanta isugu jiray 11 wiil iyo 15 gabdho. Safarkan ayaa qayb ka ah barnaamij sanadle ah oo markasku u diyaariyo ardayda xifdisa Quraanka Kariimka si loo dhiirigeliyo aqoontooda diimeed iyo horumarkooda shakhsi ahaaneed. Safarka ayaa ka bilowday xarunta markaska kadibna ardayda waxay u safreen oo ay gaareen goobta ciyaaraha salaxa ee Mandera Grills halkaas oo ay ku soo bandhigeen ciyaaro kala duwan iyo tartamo madadaalo ah ayagoo muujiyay xirfad waxaana ka muuqday farxada. Intaasi kadib ardayda ayaa booqday webiga Dawa. Ardayda ayaa sidoo kale la saaray doomo si ay ugu wareegaan webiga taasi oo u ahayd waayo aragnimo xiiso leh iyo waliba madadaalo. Ugu dambeyn safarkaasi ayaa lagu soo gabagabeeyay hotelka Density halkaas oo ardayda loogu sameeyay qada sharaf iyo munaasabad lagu maamusayay guushooda diimeed. Ardayda sidoo kale waxay soo bandhigeen Quraanka Kariimka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. مد تحفة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميز الكمالي. markaska Khaliilur Raxmaan ayaa kamid ah xarumaha ugu firfircoon ee lagu baro ardayda Quraanka Kariimka ee magaalada Mandera. Sanad walba ardayda ayaa loo qabtaa safaro dalxiis iyo xaflado dhiirigelin ah si loogu kobciyo aqoontooda. Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan